sida aad ka warqabtaan waxa aflagaado iyo xumayn nabigeena xabiibkeena kaleey salaatu wasalaam la doonayo in lagu cambaareeyo laguna xumeeyo laguna suurad xumeeyo diinteena islaamka ee ka dhacday wadamada caalamka wadan kamid ah xabiibkeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaa naxariis ilaahay oo u soo diray caalamka oo dhan wama arsalnaaka illa rahmatan lil caalamiin risaaladiisuna risaalad raxmay ahayd risaalad nasiixay ahayd risaalad ummadda ay ku diirsatay noloshii nabiga iyo geeridiisa ka bacdi ilaa waqtigan ilaa qiyaam saacaha ilaa ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala hortiisa laga istaagayo risaaladaasi risaalada muhammadiyada ah qofkii isku daya inuu aflagaadeeyo inuu xumeeyo inuu suurad xumeeyo inuu wax u dhibo isku dayo asaga baa ku khasaari jiray taariikhda waxaan rajaynaynaa sidii ay ugu khasaari jireen qolooyinkii ka horeeyay kuwan inay sidoo kale ay ugu khasaarayaan ayaan rajaynaynaa risaaladana ilaahay ayaa xifdinaya subhanahu wa ta'ala risaalada uu waday ee quraanka kariimka oo ugu horeeyay inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun quraankan Allah ayaa soo dejiyay asiga ayaana ilaashanaya nabigeena noloshiisa laga ilaali jiray geeridiisa laga ilaalinaya wax ay ka dhibi karaan iyo wax ay ku soo kordhi karaan midna ma jirto ummadda islaamka meel kasto ay joogto waxaan la qabnaa xumaanta gubashada ka damqashada runtii xumaha ay geysteen dawladda Hindiya aad iyo aad ayaan uga xunahay anagoo ku hadlayna magaca ummadweynta Soomaaliyeed waa cambaareynayna falkaas waa wax laga xumaado ummadda muslimiinta meel kasta joogan intii ka dhidhisay waan uga mahad celeynaa inta wadada ku soo jirtana waa ku bogaadinaynaa in arintaas loo midoobo wada maaragtay midana loo wada maro aad iyo aad ayaan uga xunahay mar walibana waxay ku soo aadiyaan munaasabad muhiim u ah ummadda muslimiinta ah aflagaadadan tii ka horeysay ka dhacday Faransiiska waxaad ka warqabtaan yawmu mawlidi nabiga kaleey salaatu wasalaam dhalashadiisa lagu soo aadiyay tanna waxa lagu soo aadiyay mawsimkan weyn cadiimka ah yoom maaragtay xajka ah oo ummadda muslimiinta ah oo dhan isticdaad iyo diyaar garow ugu dambeeyay ugu jiraan ayaa lagu soo aadiyay ummadda muslimiinta waxba kama dhibi doonaan ayaka baa is dhibi doono mooto